maanta waxaan halkan u hambalyeeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xilka qaadista uu igu sameeyay waa waajib qaran oo uu leeyahay inuu mas'uuliyiinta isku bedelo waxa kale oo halka ka sii tixraacaya markii ay dooranayeen madaxweynaha wuxuu inoo ballan qaaday inuu sharcigu shaqeynayo maalin walba oo Muuse hadlayo madaxweynuhu hadlayo wuxuu yiraahdaa sharciga shaqeynaya Muuse hortaanu sharciga ku shaqeeyo waa sharciga balasaabada ayaa ku shaqeeyay sharciga ku shaqeeyay midaan samaystay maaha mid cid kale idibtay maaha mid aan anigu dhul ku cunay maaha mid aan lacag ku doonay maaha waa mid aan ku toosiyay maamulka oo waxay badlaynayaa ismaamulka gobolada iyo degmooyinka ee xeer number 23 qodobkiisa 14aad ayuunba ku shaqeeyay dawladdu markay doorasho galaan kala daadasho maamul baa yimaada habrasha timaada waxaynu ka soo baxnay waa la ogaa iyadoo ay ka dhisan yihiin 8 maamul oo aan isxukumini khaasatan degmada dhaqaalaha ee Wajaale taasi iyada oo ninka maamul loo soo magacaabay hadduu raalli ka noqdo ay tahay dawladdi ma jirto halka laga raacay aniga horta waa halka waan idin sheegay waxa dawlad gooniya booliiska oo ilaada jalankaana amra oo ay been tahay taliyaha saldhigga waxa amra oo xeerkeedu ku qoran inuu amro oo uu ka dambeeyo wax allaale waxa mas'uuliyiinta degmada u joogta maayarka wada amra markay timaado gobolka balasaabku wuxuu amraa taliyaha qaybta iyo maayarada iyo isuduwayaasha wuxuu dabagalaa oo ku ogaadaa shaqadooda hay'adaha ka wada si adeegyadii bulshadu ay u tufusho waxa Wajaale ka jiray baan idin sheegaya marka la qaadayo cashuur waxa qaadi kara wasaaradda maaliyadda iyo dawladda hoose waxa ka jira ragjoolna samaystay oo lacag qaada waan xaaladinay haday khalad ahayd yaa ku saacay waxa ka jira niman ganacsata oo waraaqo forgery intay sameeyaan marka ganacsatada ay dad gaar ah ma jeedee waa wixii waxa ku shaqeysta oo sharciga runtii ka hor imanaya waxa ka jira guddiyo iyagu amra maalinba ninkay doonaan keena degmada Wajaale wayna waxa iyaduna ka jirtaa isgaarsiin xaaraana markaan leeyahay wax sharci oo loo haystaa ma jirto isgaarsiintaas waxay ahayd halkan wasiirkayga arrimaha gudaha fadhiya dawladda Itoobiya heshiis baynu la soo galay kilalku ka mid buu ahaa diri dhamaan ku soo saxeexay aniga iyo wasiirku wafdigii baanu ka mid ahay inaan Itoobiya wuxuu culi halkan fadhiisan karin iyana inaan cadowino soo fadhiisan karin wixii iyada xalaaya iyo wixii nagayna xalaaya inaynu qolo waliba in ay dhankeeda ka foojignaato waxa wasiirku uu soo qoray ama uu leeyahay waxaad fulisaa isgaarsiinta xaaraanta ah ee la leeyahay halkaas ay taala la qabto waan qabanay qaarkeed inteedii baday wali way taalaay markaan qabanay waxa ka soo baxday wada shaqeyn la'aantaan sheegay booliisku way ku dhici waayeen anigoo balasaabkii oo amraya inay galaan oo ay soo qaadaan oo waliba qoraal u qoray tii wasiirka inta qoraal ku lifaaqay waayo way ku dhexmilmeen oo iyaga ka mid noqday kuwa laftigooda la doonayay inay wax ka qabtaan ayaa ka mid noqday haddana waa kuwa ashtakada iyo beenta habeen walba madaxtooyada la taagan ku qabsanaya berbera oo ku hadli doonaaye maanta waa soo gaabinaya tacabaayne maanta waa hadduu timiracaayayo toolahaande raggaan tiirka qabadsiiyey waxaa
وحليا oo runtii fariin ugu diraya madaxweynaha halkan dowreey oo kooban oo aan leeyahay waa inaad wax badan hubsataa waa inaad mas'uuliyadtaada warbixinta ugu dambaysa ee gobol ama degmo waxa iska leh farsaabka iska leh waa shaqadeedii oo lagu farageliyay oo si qaldan loo isticmaalay oo dalka iyo ummadda lagu sameeyay سلطان حق بضم اسلامات وجواب سلطان كان الكاكار لكن اسماعيل هو يقبح صدق وحي سلطان دور في بايورد حق صلاة تقول ترتاح لكن هو بقي سلطان اسماعيل يسوي حوار المايس وحق اني بسلتين حق بضم وكروه كان ليلة مد بكلمة دمار إصلاحي وين اسكتين يا مات لكن مدحويناه سؤال أيام ويديني وحليها ما حمراها الدقاقة ما حمراها الدقاقة وأوري هذا هذا هو يقطع بيو ما حمراها الدقاقة ما هدولين باتني وبا كسو دينا يا يو وحويان بيش الله ينادو وجهاله ومدى غير قبيلي وعلى ينادو جبريل أبو قربان بيش القرآن ومد كلا عنتا ويكدو الميت تتكدقان ويكدو الميت لكن تبا كدو النور وديكو العبية سيدا ساحل إيتاني هو يتلميه يا ليهاي مقوي دلمك قوة دي مركا سنيني كتبتو شرعي كتبتها أيها يجي نلو مقلي مركا وحليهاي ما هدولين باطلي وباليادة كنتينيا فريمي بدايا من الحويلة ودناي دبارو نقليا حسي شاهل قبيبا كتغيا مصوى ما هي واحد مجيك السوق ما ينحاني سارنين صلاة يمضاني لنلما ليقنادو ما ينحاني سارنين صلاة يمضان إلى نلما ليقنادو وأنا ملب ركلا ووش الشمي وحقمي ديو وأنا فرطنا مبصنا الميشنا أجوغو وكقمي العدى هاي ميل سديدني انت أصاني إذا نفسه علي وعارضي قرية صدح ربشا مي أيان هذا الكيغ ودي قرية تاسو كل شيء دونه مستقبل كيغ السياسات halka uu ku dambayn doono iyo halkan ka gali doono halkan ka dheer ee dalkan inaan iyo umadiisa inaan wax ku taro kama caajisayo kama la fadhiisanayo basalaamadiin على أمور الدنيا والدين waxaan ku jiraa xafladda gabagabadii odayaasha aynu halkan u kala wareejinaynaa sida la sheegay way isugu sheegay xalasaabka cusubi wuxuu halkan la iman doono iyo wuxuu qaban doono uu idiin sheegay xalasaabkii horena wuxuu idin kala tegayo iyo wuxuu idin faray uu idiin sheegay waxay la tahay soomaalida waxay ku mahmaadaa ama gabaygaan dunya wuxuu ii doon salfuuda wuxuu isugaya muu dhawo waxaan ka filayay saaxiibkay ramaax oo guddoomiyihii 6 gobol soo maraya inuu mahadnaq iyo muxuu ahaa soo dhaweyn saaxiibkii iyo hobol tusaale isaga hobol tusaaleynayo oo waxa halkayga alla uu sheego inuu u sheego ee aanu ka cabsin baan ka filayey hase yeeshee waxaad moodaa inuu u bahalageliyey waxaan leeyahay waxa aad bisha 3 samayn doonto qarankana eegi doona ورسالك عصور وسولو وينيا وعلى هالجبل وناكسن والله هم قاعدوا قبل كبحوا عقارا
oo iriida berbera ka soo baxdaa u muuqan doonto haddii aan la idhaahdo wajaale ayaa lagu keenay sidii aad ugu shaqayn lahayd baa lagaa rabaa waxaan ka filaya saaxiibkeena ma ah oo loo badan wada soconnay inaanu muxuu ahaa khaatumadiisa hadal xun ku sii khatimin ee uu qaranka intaa ugu shaqaynay mahadnaq iyo wanaag ku khatimo 6 gobol oo hore ka soo shaqeeyay waa kii 5 buu ka soo shaqeeyay waa kii 6aad waxay ummadda reer Somaliland uga fadhiyo oo muxuu ahaa ka mudan tahay inuu ummaddii uu la soo shaqeeyay gobol walbana tixuu kaga tegi jiray maantana qolada waxaad kaga tagtay baaqii shimbirihii maxay ahayd xawaaraha dagaagaygu kaga tegay aad baan runtii uga xumahay waxaan leeyahay ramaax odaynimada ku soo noqo xaasii muxuu ahaa reegabiley muxuu ahaa ka noqo ereyga atri baan ku leeyahay